oo maxaan ku dhahdaayey ummadda islaamka ee ehelka ee ilaahay meesha ku wada nooleeyo ku wada beeray aan maxaan ku dhahdaayey ku habboonayn oo kala takoor iyo kala qoqob iyo maxaan ku dhahdaayey kicin iyo maxaan ku dhahdaayey xumaan iyo istireensiin abuuraysa in maxaan ku dhahdaayey abuurayso beryaan soo noqnoqonaysay waxaana caadaystay anigu hadalkaygu baahi maayo ummadda islaamka ee ehelka ee Soomaaliland hadalkaygu wada gaari maayo qolo bariga iyo galbeedka iyo dhexda toona waxaan ku soo koobayaa ninka magaciisa la yiraahdo Habaar dadku waxay u yaqaanaan Suldaan Saleebaan laakiin annagu Suldaan Saleebaan haday qabiil tahay iyo haday bariga Hargeysa tahay iyo haday qurba joog iyo miyi joog iyagaba haday tahay annagu Suldaan uma naqaanay Habaar baan u naqaanaa inuu habaar yahayna waxa ku tusinaysa qofka bilaadanka ee islaamka ah waxna way ka reeban yihiin oo way ka xaaraantinimaysan waxna way u banaan yihiin dadka islaamka waxa ka reeban inuu qofku waxa weeyaan xishoodo oo ixtiraam yeesho oo cid uu la dhashay iyo cid uu la jaarka yahay iyo cid ay wax kala dhaxeeyaan inuu sharaf iyo karaamo iyo ixtiraam kula noolaado uu qiimeeyo uu markuu hadlayna si asluub iyo ixtiraam loo hadlo ayaa maxaan ku raahdaayay wanaagsan marka uu cid maagayana ayadoo qof weyn iyo qof yar iyo qof kasto islaamaba xurmada iyo ixtiraamka ay ka mudan yahay haddana qofka mas'uulka ah ee anba madaxweynaha anba ra'iisul baarlamaana anba maxaan ku raahdaayay mas'uul qarana wuu ka sii xaq jiray ixtiraamkiisa iyo marka la hadlayo iyo marka la qiimeynayo marka kula joogo iyo marka ka maqan yahayba Saleebaan wuxuu caadaystay inuu dadka islaamka ee ehelka asagoo waxba ahay oo maran anigu waxaan u aqaanaa suldaanka maran suldaan waxa lagu yaqaanaa inuu dadka ururiyo inuu dadka isku keeno inuu markaad aragtaba hareerihiisa la yaacayo in markaad aragtaba gaarigiisu buuxo in markaad aragtaba gurigiisu buuxo in lagu urursan yahay inuu dad yahay inuu mid dadka wada yahay nin markaad aragtaba kaligii uu rooraya sidii bahal xoolo laga reebay anigu asaga mooyaane horta maan arag waxa la yiri waxa la yiri faras ku jira beer ayuu dameeru yimi deetana markaasuu dameerkii baa yiri war waan gaajoonaya faras oo naftay hayso waxba kuma nooliye inaad beertan barwaaqada ay cusubka ay ku jirtaan kula daaqa buur wuxuu yiri inaad way wanaagsan tahay waan kugu sii dayn la beer cusubka iyo nimcada aan dhex joogaan cunaaye waanaad aamusahayn oo imka markaad dheregto ayaad qaylinaysaa halkan nabaha la yiraahdo libaax baan ku soo maray buuri halkan maxaan raayay beerta agtiisa markaad dheregtaad qayliso labadeenaba wuu istul dhigaya inaad wuxuu yiri wallahi inaanan qaylinahayn markaan dhirga waan iska aamusayaa inaad aan kula daaqo way saanan u badinayn haddaan se kelmad yar oo kooban halkan ka idhaaho horta marka hore waxaan boolojiis iyo xaal aan u gudbinaynaa haddaanu beesha bariga Hargeysanahay gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ciro oo laga aflagaadeeyay miidiyaha dad aan u qalmin ay ka aflagaadeeyeen halkan aan uga diraynaa maxay hayday boolojiis iyo xaal baan halkan uga gudbinaynaa intaas waa inta kale ninka la yiraahdo Habaar wuxuu miidiyaha ka yiri Isxaaq beesha Isxaaq la yiraahdo u taliya ana iga amar qaadanaysa ana ay caynkan waxa suu miidiyaha kaga hadla waxa waan la talinayaa anigu wax kale oran maayo waan la talinayaa Suldaan Habaar waan la talinayaa waxaan kula talinayaa Muuse Biixi u sheeg Muuse Biixi intaad la faqdo inta u sheeg laakiin miidiyaha isla soo taag beesha Isxaaq baan u taliyaa halkan ay fadhiyaan waxa miidiyaha isla soo taagin been bay kugu noqonaysaa waxaan kugu daray dadku wuxuu gelayaa doorasho abaartan hadii ilaahay waxaan ka baryayaa in abaarta ilaahay naga soo furto oo roobku inoo jiilaaldo ilaahay intaasaan ka baryayaa marka ilaahay ina xil furto oo abaarta inaga saaro doorasho la geli gurigaaga kuwa jooga Habaarow kuwa gurigaaga jooga isleeday mas'uul baad ka tahay soo aad ii garan maysid kuwaasaynu isugu imanaynaa haddaad i dhaafiso oo Muuse Biixi amba kulmiye u geyso geesi dhalay baad wax kalena hadalkiisa ba iska daa intaasaan kaga baxayaan
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكا إلهي دنبجين يد دنبجي والدين تبير أحضان اللواء بلايا اللواء بلايا يجهل بويرا يجهل بلايا ذا نقول قارنا واحد خير 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 كيجهل بويرا قف وليبوح بني آدم كدونه أيوك هلا وحنو الله النهي ما ناتش علينا أن تيفي جيس تاجنا مدد بني آدم يان وحنا راهنو لو القربان أنو جيس تاجي وان كم يرستا مركني مركله هذا الكا إن كا سلطان هبار باي كياني لو القرن وحي كياني سيرايي كردينتن و كردستان يو شرع الدرada ba dhowr goornaan ka hadlay ma jeclin inaanu tiifiyada nimaadno bani aadmiga wax ka nidhnaano waxaanu ku leenahay halkan waxaanu raa boolajiis ka siinana hadaanu nahay beesha Isxaaq Carre cid kasto oo ay khusayso hadalkii ninka habaar ka soo yeedhay waxaanu leenahay walaalayaal idin hadalkaas meel ka dhac buu yahay hadday xusbiga tay hadday Soomaaliland kornimo tay hadday Cabdiraxmaan tayba walaalayaal boolajiiska qaata cid kula laba oo isa soo taagaysana ma jirto oo ninka raacsani maalintii dhaweydaynu ka erinay gurigii ninkii ciida gale ragii keeriyaa kamid aha cid raacda meedaan arag walaalayaal raalli ka ahaada lama qabne soo xignaade waxaanu leenahay Muuse Biixi hal baan leenahay Muuse xusbiya dadku waa u siman yahay waxaad ogaataa oo aanana ballan kuugu qaadaynaa oo dhawoobi doonto dhawaana jawaabteeda aad arki doontaa hadalka uu leeyay ka kula taagani eed maalintii dhaweydna tiri waryaan la caayin xusbiga wartada ka caayay ayadoo beeshan Isxaaq Carre aad ina yar ka weyday baad arki doontaa Muuse ballantaasaan kuugu qaadanaa dhawaan baana jawaabteeda aad la kulmi doontaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa kaloo labaad oo aan ilaahay inoo baryayaa waxa ina haysa abaar baahsan oo ballaadhan oo aynaan hore u arag wax la mid ah ilaahay waxaan inoo baryayaa inuu ilaahay raxmadiisa inoo shubo ilaahay isaga gacmo weyne tiisun baa lagu ambaxaa lagu ilaahay isaga kaafiye ilaahay inuu abaarta inaga dul qaado iyo cidhiidhiga taana ilaahay baan inoo baryayaa waayahay intaa kadib waxaan ka hadlayaa afar kelmadood oo gaagaaban odhanayaa su'aashan imaka adeer aamus hadalka markaagi waa tiriyay su'aashan halkan wixii aan u nimi oo ah aflagaadada iyo meelka dhaca ummaddu khalqigu oday iyo inantoona cidina cid kama geydo cidina cid kama kasbato laakiin ninku wuxuu keensado abaalkeeda wuu helaa waa madaqal albaab waxaan idiin sheegayaa habaar ninka la yiraahdaa wuxuu annaga naga kasbaday hadaanu nahay beesha bariga Hargeysa afxumo uu ummadii Ilaahay kula kacay oo uu eedeeda gaar uga sii dhigay madaxweynaha mustaqbalka Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ambase ra'iisul baarlamaanka Soomaaliland uu kula kacay oo mar ahayn oo laba ahayn waxa laaliyo wuxuu geystay aan jirin waxaanu siinaynaa gudoomiyaha baarlamaanka ambase mustaqbalka madaxweynaha xusbiga wadani waxaanu siinaynaa xalal iyo boolajiis iyo meel ka dhac manuu kasban hadaanu nahay beesha bariga Hargeysa waxaanu ka siinaynaa afxumada habaarna waxaanu sheegayaa dhibaato waxa nagu keenay anigu wax kale odhan maayee cumaamadiisu meel ay saaran tahay iyo cid dooratay iyo wuxuu qaatay garan maynaa laakiin say qaranka inaanu metelin baan anagu ma daw sheegayna waxaana dhib nagu keenay iyo hawl iyo hadimo gaarigii Cabdiraxmaan Colmadow ee ka soo qaaday goosiga maalintii ay dalka la soo galay Hargeysa keenay baa dhibaatada nagu keenay kaasa ceebta iyo mudarrada nagu keenay waa kii foostada ka riixi jiray goosiga qiimihiisu intaas oo waxa weeyaan anagu maanta waxa weeyaan dhibaato kale u geysan meena intaas maanta dhibaato nagu tahay